بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كن عالما أو متعلما ولا تكن ثالثا. وبرنامج كيني تربية أرضيقا يقيبتيسي أفرات. حكمة داس أنكو بلاواني وحكمة عانة أو حتى دربية إسكولات لغو قرأ أو إلا هي كن عالما نقو مد dad wax baraayo oo mutacalliman ama mid wax baranayo ama wax baro ama wax dad wax bar wala takun thalithan hanaqonin mid saddexaad macnaha inaad wax barto dadka inaad wax barato maxaa ka soo horjeedi karo inaad jaahil noqoto oo meelahan aaf fariisato oo mala yaani aad soo jeediso. hadaba barnaamijkeeni maanta cinwaankiisa wuxuu noqonayaa ardayga iyo tacliinta. maadaama barnaamijkeena uu taxanay inoo ahaa silsilad noo ahaa oo aan ka soo sheekeynay dhowr xalqadeena maanta waxaan ku qaadanaynaa ardayga iyo tacliinta. sidiisaba ardayga waxa qiimaha u yeelayo ama qof walbo bani aadan ah waxa qiimaha u yeelayo waa tacliinta. ilaahay subxaanahu wa ta'ala meelo fara badan ayuu ku amaanay dadka cilmiga leh. إلهي وحوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إلهي سبحانه وتعالى كو إيمانك لغا هلي كو علمك لهبا إلهي سبحانه وتعالى كر أيو أقادا درجة أيو يلا. آيات كلا إلهي محوكو يري هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كو وحبرتين كو وحعنبرنين مسيمينيهين اسكو هل مياه اسكو هل معها قفك مركو أقون ليهي oo waxbarashada ku dadaalo oo markuu ardayga ahaa waxbarashadiisa ka fikira oo ku dadaala oo khiyaano iyo laalaab uu ka daayo waxbarashadaasi maalin ayuu harsanaya. waxbarashada maalin adaa harsanayo maalin ayada ku harsanayso markii adiga aad baratid oo meel fiican aad kaga soo baxdid waxa waaye sharafna waad yeelanaysaa ixtiraamna waad yeelanaysaa. maxaa yeelay qofka markii aqoon yahan uu yahay meel walba uu maro magaciisa wuu yaalaa. ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ballan qaadayba qofka aqoonta leh ilaahay kor uu qaado. ardayda marka oo hadda waxbarashada ku jirta oo iskuulaadka dhigta ha ahaado macahad ha ahaado private wuxuu rabo ha dhigto ardaygaasi waxa waajib ku ah waxbarashada inuu ku dadaalo oo labada gacmood uu ku qabsado. maxaa yeelay al-ilmu nuur, waxbarashadu waa nuur. adiga imtirkaaga hadii nuurkaasi adduunyada aad ku iftiinsato aakhirana ilaahay subxaanahu wa ta'ala markii adduunyada aad joogto oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala si aqoon leh aad u caabudo. maxaa yeelay ilaahay laftirkiisii markii la caabudayo cibaadadiisa waxay u baahan tahay aqoon in loo lahaado. meesha ugu soo dhow ugu yar waa salaada waay. salaada hadii aqoon la'aan iyo cilmi la'aan aad tukato salaadaas ilaahay xaqiisa waxba kama goyso. maxaa yeelay hadaadan garanaynin salaadaada wax burinayo waxa oo kiraahiye ku ah waxa soo dhan waxa ka fududeynayo waa waxbarashada. ardayga marka oo had sanad dugsiyeedkiisii gabagabada ah maxaa uga aadan dhanka tacliinta. waxa uga aadan markii waxbarashadiisii hadda dugsiga sare oo kale uu dhameeyo oo labada gacmood uu ku qabsaday imtixaankiisana ilaahay uu fududeeyo meel fiican uu uga soo baxo inuu meesha ka wado inuusan joojinin waxbarashada. waxbarashada adiga ku daalay ma ahe meel oo dhamaad ah oo la soo taabanayo ee leedahay ma leh. qofka ugu aqoonta badan adduunka wali wuxuu raadinayaa cilmi ayuu raadinayaa. cilmiga waa baxar. maxaa yeelay meel walbo aad ka gasho cilmiga ma dhamaanayo. ardayga marka waxa muhiim ah oo waajib ah waxbarashada inuu tayo u yeelo uu qiimeeyo dadka waxbarashadana uu qiimeeyo dadka ku jira yani meedaankaasi iyo fildigaasi waxbarashada ah inuu sharaf u yeelo uu ixtiraamo. maxaa yeelay adiga bari markii aqoontaada ay meel fiican soo gaarto in lagu ixtiraamo waa doonaysaa. hadaba yeesan naga noqonin waalidka inaan la gooyno oo waalidka bisha markay dhamaato lacagta oo la soo waco iskuulka lacagta uu dhiibo adigana buwaagta aadan akhrinin casharka aadan daneenin fasalka aad ku noqoto mid ku sheekeenayo mid macalinkiisa aan ixtiraamaynin. aqoonta hadii dhinacaas ay ka marto ugu bari adaa u shalayn doono. maxay maanta awooda leedahay wax walba waa akhrin kartaa wax walba waa arki kartaa laakiin marka waayil noqoto oo waxbarashadii xarafkii uu ka qarsoomo markaas waxa waaye wax aad sameyn kartid male. waxbarashada laba gacan lagu qabto. kun caaliman aw mutacalliman wala takun thalitha. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.